inaan baydhabo kaab ka soo xirno magaalada baydhabo kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan tagno wasil iyo xardheere aadan yabaal meelaha fokuska aan saarayno meelahaas waaye wax kasta oo aan qaban karno oo kubadda cagta ku saabsanna inaan qabanno in dadkuna ay wixii aan ballan qaadnay ayna naqan kaliya ballanqaad afka aan si baraatika u fulino waxaan tagnay degmooyin badan oo aan tartam ku soo qabanay ka baydhabo kismaayo cadaado gaalkacyo garawe meel badan aad tagto aan ku soo qabanay tartamo hore ugu soo qabanay aad u maasanta mahad annaga safarkeennu wuxuu ahaa safar aan ugu kuurgalayno dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan safarkeennu wuxuu ahaa inaan degmada Celeer ku qabanno tartan lagu xusayo halyeegii garsoorihii weynaa ee Xuseen Maalin Jimcaale Xuseen Maalin bir loo yaqaano in kaas oo aan u xulanay inuu ahaa dadkii ugu horreeyay kubadda cagta oo garsoorayaasha ugu horreeyay uu ka mid ahay iyo inuu deegaankaas ka soo jeedo wax badan u taray degmada markii aan tagnay waxaa noola soo dhaweeyay si aan filayna noola soo dhaweeyay oo aad heerkeeda u sareeyo annaga waajibkeenu wuxuu yahay dhalinyaradu inay ciyaaraan kubad xiriirka Soomaaliya kubadda cagta madax ka ahay dhalinyaradu inay kubad ciyaarto waa anaga waajibka aan saaranahay dhalinyaradu waxay aad u bogaadinayeen in ay ciyaaraan banooni tartamana way ciyaarayaan laakiin aad uma badnayn laakiin hadda waxaan isla garanay inay ciyaaraan maamuladina aan u dhisno looga baahnay sida u qabanno macallimiintii garsoorkii maamulkii korsooyinkaas u qabanno refereegii sidaas ayaana marka ku soo ballanay aad iyo aadayna ahayd muhiim u ahaa safarkeenu dadkuna aad iyo aad u soo dhaweeyeen waxaan uga dan leenahay dhammaan kubadda cagta inay dalka dhan wada gaarto in laga wada faa'iideysto inaan raadino dhalinyarada talentiga oo waddanka ku nool inaan wada raadino si xulka qaranka loo matalo annaga marka ujeedadana waxay tahay inta aan mandate-ka haysano inaan dhammaan degmooyinka dalka oo dhan aan soo marno waxaan u mahad celinayaa wasiirka isboortiga dhalinyarada isboortiga galmudug iyo gudoomiyaha ururka kubadda cagta galmudug oo dhammaantoodba ah dad u bisil in kubadda cagta loo horumariyo waxaa kaloon u mahad celinayaa dadka Ceeldheer oo ugu horreeya gudoomiyaha oo Cabdi Barre iyo gudoomiyaha ku-xigeenka Fayfle iyo dhammaan asxaabtii meeshaas aan ugu tagnay iyo dhammaan community-ga oo dhan isku duuban odayaasha dhalinyarada culummada oo muddadii aan joogna meeshaas noo muujiyey in ay kubadda cagtana danaynayaan Soomaalidana ay danaynayaan degmadu waa degmo qadiimi ah waxaan noo sheegay in afartameeyadii ka soo guurtay mareeg waa magaalo aad qadiimi u ah dadka Soomaaliyeed oo aad magac u lahayn ay ka soo baxeen uu ka mid yahay halyeega hadda koobka aan u maadarnay marka magaalo ilbaxeed waaye magaalo aad u fiican waaye sidaan u fiilayay si ka fiican aan kala kulanay oo ah soo dhaweyn aad u qurux badan iyo in dadku ay Soomaalida jecel yihiin iyo in ilbaxnimada la sheegay ka muuqato anaga meel kasta oo horta kubadda cagta lagu ciyaaran taginaa hadda qorshaha wuxuu yahay inaan noogu horeeya inaan baydhabo kaab ka soo xirno magaalada baydhabo kabacdina waxaan rajaynaynaa inaan tagno wasil iyo xardheere aadan yabaal meelaha fokuska aan saarayno meelahaas waaye wax kasta oo aan qaban karno oo kubadda cagta ku saabsanna inaan qabanno in dadkuna ay wixii aan ballan qaadnay ayna naqan kaliya ballanqaad afka aan si baraatika u fulino hadda waxaan ku jirnaa inaan wax si baraatika u fulino dadkii la tagno la qaybsanno wixii ay kubadda cagta u baahan tahay oo awooddeenu la egtaane aan u geyno waxaan tagnay degmooyin badan oo aan tartam ku soo qabanay ka baydhabo kismaayo cadaado gaalkacyo garawe meel badan aad tagto aan ku soo qabanay tartamo hore ugu soo qabanay haddana Celeer iyo Cadalne waxay ka mid yihiin kuwaas ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan wada gaarno intaan sanadka afraad la gaarin dhammaan degmooyinka dalka